هاي صاحبي waxaan rajaynayaa inaad dhamaantiin nabad qabtaan anigana waxaan idin wadaa soo laabasho xiiso leh anagoo si wadayna enemy-giina monster saaxiibayaal hadal badan ma idin ku daalinaya sababtoo ah halqadaha aan idin wada ma ahan kuwa caadi ah sababta aan u doortay monster ma ahan inuu la mid yahay enemy-yada kale waa enemy xumbaarsan fariimo culus su'aalo badan iyo macnayaal qoto dheer tani waa sababta ay dad badan ugu tixgeliyaan inuu ka mid yahay enemy-yada ugu waaweyn ee sheekooyinka cilmi nafsiga ku dhisan laakiin hal arin ayaan rabaa inaan idin xusuusiyo monster waa enemy ku dhisan xusuus taasna macnaheedu waa in dhacdo kasta ay ku xiran tahay tii ka horeysay sidaas darteed haddii aad nagu cusub tahay waxaan kugula talinayaa inaad marka hore daawato qaybihii hore si aadan u siigin macnaha dhabta ah ee qisada hagaag intaas waan isla fahnay markii aan dib u milicsano halkii aan joogsanay xalqadii hore waxaan ogaanay sirta Kinderhim 511 Hartman wuxuu nooga waramay caruurnimadii Johan iyo himiladiisii naxdinta lahayd taas oo ahayd inuu ugu dambeyn kaligiis ku haro adduunka ugu dambeyntiina wuxuu Tinma u tilmaamay hal qof oo laga yaabo inuu hayo jawaabaha uu raadinayo General Wolf halkaas ayaynu maanta ka sii anbaqaadi doonaa laakiin ka hor inta aanan guda gelin haddii aad ku raaxaysanayso taxanahan fadlan muuqaalka like saar subscribe-na noo taabo gambalaalkana daar si aysan kuu dhaafin muuqaalada xiisaha leh ee aan idiin soo gudbino sidoo kalena muuqaalka asxaabtaada la wadaag si aan u dhisno qoys ballaaran run ahaantii idinka ayaa kanaalkan horumarin kara anigana waxaan idiin ballan qaadayaa inaan idiin soo gudbi doono waxyaabaha ugu tayada wanaagsan mahadsanidin dhammaantiin haddaba ka hor inta aanan bilaabin aan ku salina nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam hagaag inuu gudagalno halkaasna ayuu ku bilaabmaya lamaano cusub dhakhtar iyo wiil agoonta ah qaybtan waxay ahayd nooc sida kuwayst ka dhacaysa tuulo leh dhowr dabeecado taas oo aan muhiim noqon doonin mustaqbalka laakiin soo koobid tanma waxaa garanaya sarkaal boolis ah tanma wuxuu sameeyaa waajibaad dhakhtarnimo inkastoo lagu xirayo halista jirto tanma ma la xirayo sababtoo ah bukaanka uu daweeyey waa hooyada sarkaalkaas booliska ah dhakhtarka tuulada wuxuu ka baryayaa tanma inuu joogo oo caawiyo tanma wuu diidaa sababtoo ah wuxuu u baahan yahay inuu dilo Johan dhakhtarka wuxuu ku adkeeyaa Dieter inuu tanma ku hogaamiyo dariiq saxda ah oo uu joojiyo sheekooyinka dilka qaybta 14 waxaan ogaanaynaa in Inspector Lunga oo uu leeyahay kiisas far badan oo uu ka shaqeynayo laakiin sabab gaar ah ayuu diiradda u saarayaa haweeney la dilay wuxuu u maleynayaa in siyaasiga ku jira liiska macaamiisha haweeneyda oo mas'uul ka yahay sidaas darteed waxa uu cadaadiyay xogaaya siyaasigaas inuu qirto waxa uu og yahay intaas waxa dheer Eva waxay ku soo dhacdaa xafiiska iyadoo dalbanaysa in la ogaado goorma Tanma la qaban doono Lunga wuxuu ku sheegay in kiiska hore loo xaliyay wuxuu aaminsan yahay in Johan uusan jirin oo uu yahay kaliya mid ka mid ah shakhsiyaadka kala qaybsan ee Tanma hadda waxa kaliya ay haray in booliska ay soo qabtaan Tanma way fududahay laakiin waxa aan fududay nolosha gaarka ah ee Lunga maalin habeen ah ayuu guriga ku soo laabtay oo arkay xaaskiisa iyo gabadhiisa talaabada ah oo baxaya inspectorka ma ah ninka ugu qoys jaceelka badan intaas waxa dheer gabadhiisa caasiyada waxay si caadi ah ugu sheegtaa inay ilmo caloosh ku sido ay uur leedahay laakiin ka hor inta uusan Lunga falcelin telefoonkiisa uu soo dhacay waajibka ayaa nasiib daro xogaayay oo Lunga ku qasbay madaxdiisa inuu ka sheekeeyo ayaa isdilay isagoo qoraal ugu tagay oo cadeynaya in madaxdiisa aanan waxba galabsan natiijadu waxay noqotay in hogaamiyihiisa uu ka qaado kiiska gebi ahaanba wuxuuna hadda diiradda saarayaa dilalka lamaanayaasha da'da dhexe iyo booqashooyinka mararka qaar dhinaca Eva waxay mashquul ku tahay isku dayga inay iska ilowdo dareenkeeda Tanma iyadoo ku ciyaaraysa rag kala duwan ee beeraleydeeda Oh, I don't want to give you back to your wife. Come on, stay. All right. sikadiis ah ayay u weydiisay ninka beeraleyda ah haddii uu haysto awoodda uu ku farxi karo spoiler ma haysto waxay qaadataa casho qaalisan laakiin sikadiis ayay u burburisaa iyadoo xasuusinaysa magaceeda Tanma hurdada kadib markii ay xiriir la yeelatay beeraleyda isagoo dareemaya in ay weli ku dhagan tahay Tanma isku daya inuu u dhaqaaqo isagoo isku dayay in uu noqdo ninka farxad gelin kara Eva si kaftan ah dhulka ayay isku tuurtaa beeraleyda wuxuu sheegayaa inuu la leeyahay cashada Christmaska gabadhiisa haddii ay doonto inay Eva tagto waxa imaanaya habeenka Christmaska beeraleyda iyo gabadhiisa waxay fadhiyaan cashada isagoo u muuqda inuu aad u hubsan yahay inuu qof kale imaan doono laakiin Eva ma aha xaaskiisii hore ee ka tagtay ayaa soo muuqata banaanka Eva way timaada oo aragtaa dib u soo noqoshada qoyska farxadda leh ee daaqada ka muuqata tani waa noloshii ay mar walba rabtay balse aysan heli karin aan si fudud u dhahno waxay xaalad u wajahday sida ugu xun ee suurtagalka ah waxay ku noqotaa guriga waxayna gubtaa beerta oo dhan Inspector Lunga iyo Eva hadda wax ujeeda ah kuma harin noloshooda marka laga reebo rabitaankooda wadajirka ah ee ah inay hoos u dhigaan Tanma qaybta 15aad waxay ku bilaabanaysaa nin oo soo keysisay qoobka ciyaarad qurux badan iyadoo gashay baar si ay u raadiso nin loo yaqaan Baby kadibna waxaan u wareegaynaa Frankfurt Main Station halkaas oo Tanma si qoys leh aga raadinaya jawaabo ku saabsan dilkiisa dhaxagalka ah ee Fodner ama dilka waalidiinta korsaday Nina wuxuu helaa dambi baare Messner ama si sax ah burburka ninka oo hore u ahaa Messner hadda ma ahan sargaal waa hadaag ku tiirsan maandooriye Messner waa afsare wax badan wuu og yahay wuxuu u qirtaa Tanma inuu ahaa oo kaliya ilaala habeenkaas nasiib darrada lahaa ee waalidiinta korsaday Nina ay dhinteen dilka dhabta ah waxaa geystay dambi baare Muller qof isku dayay inuu aamusiyo Messner si joogto ah balse
lama filaan ah waxaa badbaadiyey urur qarsan oo hogaamiyey nin loo yaqaana Tabebi. kadib waxaan ogaanaynaa in Tabebi uu yahay fanatic rabo inuu jiritaanka cusub ku abuuro shakhsiyadda Johan. si uu tan u gaaro wuxuu qorsheynayaa inuu Nina u isticmaalo sida dabin si uu Johan u soo baxo. ka hor inta uusan bixin, Messner wuxuu Tenma u sheegaa in Tabebi laga heli karo baar la yiraahdo Candy iyo in Nina ay sidoo kale halkaas aaday. Nina waxay si toos ah ugu tagtaa Tabebi kaas oo si cabsi leh u yaqaan nolosheeda, xitaa magaca ay asal ahaan ku dhalatay Anna Libert. laakiin Nina ma quusan, waxayna dalbataa in la tuso Johan iyadoo qorsheynaysa inay isku daydo inay disho Johan. waxaa samayn doontaa si uu hesho ugu dambeyn isku imaatinka qoyska yar. Tenma oo fahmaya khatarta si degdeg ah ayuu ugu cararaa Candy Bar si uu u badbaadiyo Nina. laakiin ka hor intaanu gaarin, haweeney Turkish ah ayaa u muuqata mid dhibsata ninka Aasiyaanka ah ee soconaya isaga oo tagaya baarka, waxaana ay si fudud ugu muujinaysaa in dhib loo gaarsiin karo. ma ahan wax lala yaabo maxaa yeelay baarkan waxaa booqda koox xag jir ah oo cunsuriyiin ah. haweeneyda waxay sidoo kale sheegtay in saaxiibteed Ayse oo kale oo Turkish ah ay afduubteen dadka ka tirsan Candy. ka hor inta uusan Tenma fahmin xaaladda oo dhan, gaari cad oo Tabebi leeyahay ayaa si toos ah loogu dhuftay. Tenma wuxuu ku haray keligiis halka Nina la geeyay qasri, halkaas oo ay la kulanto Professor Gitalit oo ka tirsan heerka sare ee isla saldanada Tabebi. saldanadan waxaa ka mid ah 4 hogaamiye oo ay ka mid yihiin Professor Gitalit, General Wolf iyo 2 xubnood kale oo aan weli la soo bandhigin. hadafkoodu waa in Johan ay ka dhigaan hogaamiyahooda ugu sareeya iyo in laga caawiyo inuu gaaro qadarkiisa oo ka dhigaya Jarmalka weyn mar kale, ama sida ay u malaynayaan. waxay aaminsan yihiin in Johan oo leh karisma masiix ah uu awoodo inuu dalka oo dhan xukumo oo uu ku guuleysto wax ka badan dadka caadiga ah, xitaa da'yar. Gitalit wuxuu Nina u sheegaa in Johan uu imaan doono si uu u raadsado, iyo marka uu yimaado wax weyn ayaa dhici doona. hadda waxay qaybta xigta u socotaa Candy. Tenma waxaa si fool xun u garaacay Tabebi kaas oo farxad ku sheegay qorshihiisa weyn. dab weyn ayaa kusoo foolla xaafadda Turkiga. waa xaflad soo dhoweyn loogu talagalay Johan. waxaa ku dhacay su'aalaha iyada miya sidaas ku oran. maxaad ku samayn doontaa iyada? soo haddii ay tahay guri aniga u habboon. qasriga dhexdiisa Nina waxay bilowdaa inay la xiriirto Ayse, haweeney Turki ah oo la haysto, iyadoo adeegsanaysa tubada musqusha. Ayse waxay maqlaysaa qorshaha weerarka ee bulshadeena, waxayna ka codsanaysaa inay Nina badbaadiso si ay u ogeysiiso dadka xaafadeeda. qaybtan Otto iyo Dieter waxaa dhexmara muran kulul. Otto wuxuu ku adkaysanayaa inuu xadaroog yaalo dukaan qadiimi ah ay Turku leeyihiin, laakiin Dieter si adag ayuu ugu soo horjeedaa. iyagoo kala xanaaqsan waxay ku kala tagaan nacasnimo. markuu keligiis wareegayo, Dieter wuxuu la kulmaa saaxiibta Ayse taas oo arkaysa inuu aad u gaajaysan yahay, waxayna si naxariis leh ugu casuumaysaa casho. inta ay wada hadlayaan wuxuu ogaadaa war dhib badan. Ayse waxaa afduubtay dad ka tirsan Candy, sidoo kalena nin Aasiyaan ah ayaa baabuur lagu dhuftay. Dieter wuxuu ka baqayaa in uu yahay Tenma. dhanka kale Tenma wuxuu ogaadaa in General Wolf uu qorsheynayo inuu la kulmo Tabebi iyo xubnaha kale. isla waqtigaas Tabebi wuxuu ogaadaa in wax walba ay diyaar yihiin si loo gubo degmada Turkiga, laakiin Tenma wuxuu isku dayaa inuu burburiyo fikirka Tabebi isagoo u sheegaya in Johan uusan ahayn qof jaahil ah oo fikrad diimeed ama nacayb ku xiran, isla markaana uu si sahlan ugu dhici doonan weerar gubis oo nacayb ka buuxo. wuxuu sidoo kale u sheegaa in Johan uu qof waliba u nacayb yahay si siman. hagaag xaqiiqadan la tuso waxay keentaa in si xun loo garaaco, iyadoo weli ay isgaarsiin ku samaynayso tubooyinka musqusha. Nina waxay samaynaysaa ballan ah inay badbaadin doonto Ayse, ilmaheeda iyo bulshadeeda. dhanka kale Dieter wuxuu go'aansadaa inuu helo Tenma. wuxuu si dhuumashaha ugu galaa Candy, laakiin inta uusan fogaan waa la qabtaa, waxaana loo geeyaa qol hoose ay joogaan ragga Tabebi. wax yar kadib ciidamada General Wolf waxay galaan qolka hoose, waxayna Tenma ka raargelinayaan sida loola dhaqmay, iyagoo ugu yeeraya marti gaar ah oo uu leeyahay Generalka. waxaa soo baxday in Tabebi uu halkan ka yahay qof hoosjooga ah oo keliya amarada qaata. guriga weyn Nina waxay la kulantaa muuqaal argagax leh. Ayse, haweeneyda Turkida ah oo ay ku wada xiriirayeen tubooyinka musqusha, waa la dilay. keliya taas ma ahan, Professor Gitalit iyo dhowr ka mid ah raggiisa waa la dilay. wax ayaa si aad u xun u qaldan, laakiin iyada weli ma oga wax dhici doona. inta lagu jiro safarka uu ugu socdo General Wolf si uu ula kulmo, Tenma wuxuu sameeyaa buuq yar si uu Dieter u siiyo fursad uu kaga baxsado, isla markaana uu ugu dego degmada Turkiga dabka la qorsheeyay. ugu dambeyntii wuxuu la kulmaa General Wolf oo qarsoodi ah. Wolf wuxuu shaaca ka qaadayaa in kulkulaanshihiisa ururkaas ama kooxdaas magac si cad ah looma sheegin, ay tahay keliya mid ku salaysan dan shakhsi ah, aan ahayn fikir ama hami weyn. kadib wuxuu sheegaa run aad u qoto dheer oo shakhsi ah. isaga ayuu ahaa qofka Johan u bixiyay magacaas kadib markii uu mataanaha ka helay xadka Czechoslovakia. wuxuu sidoo kale tusaa Tenma fariin cusub oo Johan ugu tagay goobtii lagu dilay Professor Gitalit, wuxuuna ku boorinayaa inuu helo Johan oo uu soo afjaro xukunka argagaxa leh oo uu wado. waqti yar oo haray darteed, Dieter wuxuu ku noqdaa magaalada, wuxuuna go'aansadaa inuu dadka ugu digo degmada Turkiga ee lagu qorsheeyay dabka. laakiin ka hor inta uusan waxba qaban, isagii Otto waxaa qabta koox maqaale madow oo burcad ah. dhanka kale Nina waxay fuushaa dusha dhismo baqaar ah oo la dayacay, halkaas oo Johan aga tagay fariin kale oo qarsoodi ah, taas oo muujinaysa in wax ka sii halis badan ay soo socdaan. qaybta xigta
tenma wuxuu si degdeg ah ugu laabtaa Frankfurt. Wuxuu helaa saaxiibtii Ice si uu ugu wargeliyo geerideeda murugada leh. Si kastaba ha ahaatee waqti badan uma siiyo inay murugood. Wuxuuna ku boorinayaa inay ururiso hogaamiyaasha degmada Turkiga si ay ugu digto qorshaha Dabeebi ee ah in dib la qabadsiiyo degmada. Dhanka kale Dabeebi wuxuu ku raaxaysanayaa casho raaxo leh oo uu la joogo laba haween ah oo dhismo dheer ah isagoo ku raaxaysanaya daqiiqadaas. Si kastaba ha ahaatee habeenkiisu wuxuu qaataa leexasho lama filaan ah marka Nina ay timaado iyadoo bistoolad wadata. Wax waqti ah kuma luminaysa salaan ama hadal dheer. Waxay si toos ah u dalbanaysaa inay ogaato halka dabka ka bilaabanayo. Get me some underwear first. Huh? A scary girl, isn't she? Ka hor inta aysan jawaab helin dab ayaa ka kacaya dhammaan degmada Turkiga. Xaaladda oo sii xumaanaysa tenma wuxuu ku biiraa dadka si uu ugu caawiyo daminta dabka. Meel kale Nina waxay gaartaa dhismo la dayacay halkaas oo ay ka hesho Dieter iyo Otto. Otto wuxuu hayaa macluumaad muhiim ah. Dabka dhismaha la dayacay wuxuu ahaa kaliya mashquulin. Musiibada dhabta ah waxay ka dhici doontaa agagaarka warshad ku taal webiga. Inta tenma uu daweynayo dhaawacyada, Nina iyo Dieter waxay u ordayaan si ay u gaaraan bartilmaameedka dhabta ah. Otto dhankiisa wuxuu helaa fursad wuxuu si dhuumashaha ugu laabanaya degmada Turkiga si uu u xado rooga qaaliga ah ee dukaanka qadiimiga. Marka la gaaro warshada webiga agteeda, Nina iyo Dieter waxay yimaadaan waqtigii saxda ahaa si ay u joojiyaan nin diyaarinaya inuu dabka la shido. Dhanka kale tenma wuxuu la kulmaa Otto oo hadda wata roogii uu soo xaday. Iyadoo aan waqti ugu harin dood ama muran, tenma wuxuu ku qanciyaa Otto in uu u kaxeeyo meesha ay Nina iyo Dieter ku sugan yihiin. Markay halkaas gaaraan dabka mar hore ayuu bilaabay inuu fido, laakiin Dieter wuxuu la yimaadaa fikrad. Wuxuu adeegsadaa roogii la xaday si uu u daboolo dabka oo u damiyo, sidaasna uga hortago burbur dheeraad ah. Markay boolisku yimaadaan, tenma, Dieter iyo Otto waxay si qarsoodi ah uga baxsadaan goobta iyagoo doonaya raacaya. Ka hor inta aysan bixin, Nina waxay tenma u sheegtaa in uu Johan leeyahay laba shakhsiyadood oo kala duwan. Kadib tenma wuxuu gaarayaa dusha sare ee baqaarka la dayacay, halkaas oo ay ku qoran tahay fariinta qarsoodiga ee Johan: Help, the monster inside me is about to explode. qaybta xigta kadib markii Nina la weydiiyay su'aalo booliis kadib dabkii ka kacay degmada Turkiga, waxaa goobtaas ka soo qaadaya qof ay hore u taqaanay. Waxaan dib ugu laabanaynaa xasuus hore, flashback, oo muujinaysa xiriirkeedii ay la leedahay Mr. Rosso oo ahaa dilaa hore oo hadda noqday milkiile maqaayad. Waxay rajaynaysaa inay ka barato sida loo dilo Mr. Rosso, laakiin maadaama uu howlgab noqday, waxay go'aansatay inay ka caawiso iiweynta maqaayadda iyadoo uu ah weytarad. wax yar ayay wada sheekaystaan inta aysan kala tagin dhowr daqiiqo ka hor. Hadafka ugu weyn ee hadda Nina waa inay hesho walaalkeed ay disho. qaybta xigta Dr. Rudigelin oo ah cilmi nafsiile dambi baara ah wuxuu hor fadhiyaa Peter Jurgens oo ah dilaa xukun ku jira oo leh qaab dil oo aad u cabsi badan. dhibanayaashiisu waa gabdho dhalinyaro ah, balalkiisana had iyo jeer waxay leeyihiin hab gaar ah, laakiin halkiis ayaa ka duwan gebi ahaanba. Hannah Kim oo ahayd haweeney 52 jir ah, ma jirin xadgudub ama calaamado la mid ah dilalkiisii hore. Marka Rudi weydiiyey sababta uu u dilay, Jurgens si fudud ayuu u yiraahdaa saaxiib ayaa iga codsaday. dhanka kale Tenma wuxuu raadsadaa Rudi oo ahaa saaxiibkiisii hore ee iskuulka, wuxuuna u sheegaa wax walba. wuxuu sharxayaa fariimaha Johan, dilalkii dhaqaatiirta Acer Memorial Hospital, iyo sidii si nidaamsan loo tirtirayay dhammaan dadka korsaday Johan. waxay u muuqataa in Johan uu si tartiib ah u tirtirayo raad kasta oo ka mid ah taariikhdiisa. Tenmana uu go'aansaday inuu joojiyo. Rudi si taxaddar leh ayuu u dhageystaa, laakiin wuxuu gaarayaa gunaanad u gaar ah. wuxuu bilaabaa inuu ka shakiyo in Tenma uu leeyahay laba dabeecadood, isla markaana uu dhab ahaantii noqon karo Johan laftigiisa. taas ayaa sharxi lahayd wax badan sida uu isaga u malaynayo. isagoo raba inuu taxaddar sameeyo, Rudi wuxuu la xiriiraa booliska, wuxuuna diyaariyaa in Tenma lagu qabto Otherberg. laakiin ka hor intaas Rudi wuxuu dib u wareystaa Jurgens, kadibna wuxuu booqdaa guriga Hannah Kim, haweeneyda 52 jirteed oo dilay Jurgens, si uu baaritaan dheeraad ah u sameeyo. I followed all of the instructions that my friend left me in the letter perfectly. Friend, who was he? wuxuu helay waraaqo ay ku qoran yihiin fariimo la mid ah kuwii cabsida lahaa ee Tenma hore u tusay. tani waxay caddaynaysaa in Johan uu dhab yahay, iyo in uu yahay qofkii ku amray Jurgens inuu dil sameeyo. Otherberg Rudi wuxuu Tenma kula kulmayaa bartamaha dadka, wuxuu u sheegaa inuu had rumaysan yahay inuusan dembi lahayn. halkii uu gacan geli lahaa, Rudi si qarsoodi ah ayuu ugu dhiibaa tikid bas, isagoo ka caawinaya inuu baxsado ka hor intaysan booliska qaban. natiijooyinka Rudi waxaa dib loo soo xusi doonaa mustaqbalka dhow. qaybtan Tenma iyo Dieter waxay raacaan baabuur oo wada Mr. Jones oo ahaa sarkaal boolis hore iyo xaaskiisa. la kulankooda Tenma wuxuu muujinayaa sida Tenma uu marar badan u kasbado dadka kale kalsoonidooda iyo caawimaadooda, inkastoo uu yahay nin baxsad ah oo lagu eedeynayo dil. qaybta xigta waxay ka furmaysaa Nice Friends. dembi baar Muller oo hore u ahaan jiray dilaa qandaraasla ah, hadda wuxuu noqday ganacsade farshaxan, wuxuuna nool yahay xaaskiisa Barbara iyo wiilkooda Fritz. laakiin wax ayaa qaldan.
baryahan dambe wuxuu dareemayaa in qofka daawanayo guriga ku xiga. Barbara waxay u sheegtaa in gurigaasi bannaan yahay, laakiin Muller weli wuxuu dareemaa shaki iyo cabsi. maalinkii dambe baaraha gaarka ah ee uu Muller shaqaaleysiiyey ayaa yimid isagoo wada warar ku saabsan Tenma, Nina iyo dambi baare Messner. warka ma fiicna. Messner waxaa la helay isagoo midi lagu dilay. markuu taas maqlo xusuus hore oo Fodner ayaa kusoo laabanaysa, taas oo miisaankeeda wadata. dambiga culus ayaa kusoo degaya Muller, wuxuuna u qirayaa ilaaliyihiisa Roberto in isaga iyo Messner lagu qasbay inay dilaan qoyska Fodner kadib markii uu qof aan la garanayn uu cadaadis ku saaray. kadib howshaas lacag aad u badan ayaa loo wareejiyey, laakiin weligood ma aysan baarin halka ay ka timid. markii dambe Muller wuxuu ogaadaa war kale oo naxdin leh. baarihii uu shaqaaleysiiyey waa la dilay. isla marka uu bilaabay inuu argagaxo, Nina ayaa si lama filaan ah ugu soo muuqata gurigiisa. waxay si toos ah ugu sheegtaa in ilaaliyihiisa Roberto uu yahay qofkii dila baaraha. ka hor inta uusan fal celin, waxay ka qaadataa boorsada baaraha waxayna ku qasabtaa inuu wada si ay halkaas ugu baxaan. inta ay baaburku ku socdaan, Muller wuxuu aaminsan yahay in Nina ay hal ujeedo leedahay: aargoosi. Muller wuxuu qirayaa in uu dilay qoyska Fodner sababtoo ah qof ayaa hayay sirtiisa. sirtaasna waxay la xiriirtay inuu iibin jiray daroogo ay booliska qabteen kadibna uu dib ugu celin jiray suuqa madow si qarsoodi ah. Nina oo aad u careysan waxay ku amraysaa inuu baabuurka joojiyo. waxay istaagaan meel badda agteeda ah. hal daqiiqo oo dhan Nina waxay u muuqataa inay qarka u saaran tahay inay ridda xabad. Muller wuxuu bilaabay inuu hadlo, laakiin ma ahan dambiyadiisa. wuxuu ka hadlayaa sida markii uu la kulmay Barbara noloshiisii oo dhan ay isbedeshay. You're crying? For your family? What about mine? wuxuu ka sheekeynayaa wiilkooda Fritz. ugu dambeyntii Nina way u naxariisataa waxayna badbaadisaa noloshiisa. halkii ay dili lahayd waxay hubisaa warbixintii baarihii dhintay, taas oo xaqiijinaysa in Roberto uu dhab ahaantii ka dambeeyey dilkii dambi baare Messner. isla marka xiisadii la degto, telefoonka Muller ayaa soo dhacaya. waa Roberto. ma weydiinayo boorsada baarihii dhintay. wuxuu u dalbanayaa si toos ah isagoo ku hanjabaya inuu waxyeeleyn doono Barbara iyo Fritz haddii uusan Muller keenin. maadaama aysan doorasho kala haysan, Nina iyo Muller dib ayay ugu laabtaan. Muller wuxuu dhiibaa boorsada, laakiin ka hor inta uusan wax tallaabo ah qaadin, wuxuu ogaaday in Nina la qafaashay oo ay wateen ragga Roberto. isagoo aan ka labalabayn, Muller wuxuu raacaa raadkooda ilaa guri la dayacay. gudaha waxaa si cad loo muujinayaa in Roberto uu u shaqeeyay Johan, isla markaana uu isku dayayay inuu tirtiro qof kasta oo xiriir la leh arrinta. laakiin sidoo kale waxaa la fahmayaa inuusan sugin amar toos ah oo Johan ka yimaada. wuxuu si madax bannaan u fulinayaa howlgallo. sidaas darteed Nina waxay ku dhowdahay in la dilo. markii si lama filaan ah rasaas ay u bilaabato, Muller ayaa gudaha kusoo dilaacaya, kadibna waxaa qarxa dabaylaha rasaasta. wuxuuna mid mid u ridaa ragga Roberto isagoo u dagaalamaya sidii nin waashay. laakiin dagaalka si sahlan kuma dhammaado. Muller ayaa rasaas haleesha, isagoo si dhib yar isu hayo wuxuu ku tiirsadaa gidaarka kursiga gaariga. Nina iyadoo aan laba labayn ayaa qabata, waxayna si degdeg ah u wadaa gaariga. laakiin nasiib daro ma badbaado. qofkan hadda ayaan bilaabay inaan xiiseeyo, uuna geeriyooday. qaybta 22 waxay ka dhacaysaa Humble, halkaas oo dilka la geligelay magaalada. dhibanayaasha waa lamaane dhexdhexaad ah oo la oran jiray Mr. iyo Mrs. Jobe. Inspector Lungey ayaa baaritaanka ku jira, laakiin maskaxdiisa ayaa hore u go'aansatay qofka eedeysan, Dr. Kenson Tenma. laakiin xusuusnow, arrintani wax xiriir ah kuma lahan kiisaska kale ee lamaanayaasha da'da dhexe ee lagu dilayay East Germany. Lunga wuu ogyahay taas, haddana wuxuu isku dayayaa inuu dilka Mrs. Jobe ku xiro kiisaska kale, sababtoo ah warbaahinta ayaa Tenma ka dhigtay qofka dilalka taxanaha ah ka dambeeya. sidaas darteed maxaa diidaya inuu raaco sheekadaas halkii uu ka qaban lahaa shaqadiisa saxda ahayd. si uu fikradaas u xoojiyo, Lunga wuxuu la shaqeeyaa Mr. Kiber. wariyayaasha Humble ayaa la soo gelinayaa xaaladda. waxaa lagu qasbaa inay daabacaan sheeko been ah oo Tenma lagu eedeeyo, laakiin Kiber isagu keligiis ayuu bilaabaa inuu baaritaan sameeyo. wuxuuna arkaa dhinac aan la filaynin. wuxuu baarayaa Mr. Zebel oo ah adeerka Mrs. Jobe, wuxuuna garwaaqsadaa in dilkan uusan wax xiriir ah la lahayn silsiladii dilalka lamaanayaasha da'da dhexe. Kiber wuxuu aaminsan yahay daacadnimada saxaafadda, wuxuuna u sheegaa Lunga in wargeyskiisa uu ku qasban yahay inuu daabaco sixitaan dhab ah, laakiin Lunga wuu ku adkaysanayaa in arrintaas aysan dhici doonin. isagoo si qabuuban u dhoola cadaynaya, wuxuu Kiber xasuusinayaa wax aad u gaar ah oo noloshiisa ah, arrin la xiriirta xiriirkiisa xaas la'aanta iyo waxyaabo shakhsiyeed oo xanuun leh. Kiber oo hadda lagu cadaadiyay arrimo shakhsiyeed, si niyad jab leh ayuu u ogolaadaa inuu aamusnaado oo uu la socdo qorshaha Lunge. dabadeed Tenma wuxuu yimaadaa goobta dembiga isagoo aan ogeyn dabinka loo dhigay. si taxadar leh ayuu u baarayaa meesha isagoo raadinaya wax kasta oo muujin kara Johan. laakiin waxa ayaa qaldan, qaabka dilka ma ahan faahfaahinta Johan. Why does the murderer hesitate?
xilligaas ay xaqiiqada maskaxdiisa ku dhacdo lunga ayaa guriga soo galaya tartanka ayaa bilaabanaya laakiin intuu lunga ku sii dhawaanaya Zebel ayaa soo muuqda gacantiisana midda ayuu ku hayaa wuxuu lunga ku dhuftaa midi Zebel isagoo argagaxsan wuxuu qirayaa inuu dilay Mrs. Jobe laakiin halkii uu lunga xirin lahaa wuxuu si qabooban u qaataa bistooladiisa wuxuuna toogtaa Zebel kadib markii uu lut ka dhaawaco wuxuu si hoos u leeyahay inuusan hadda wax dhanac ka lahayn Zebel dhanka kale wuxuu Tenma si degdeg ah ugu cararaa baabuurkiisa isagoo diyaar u ah inuu meesha ka baxsado laakiin isla marka uu bilaabay inuu dhaqaaqo lunga ayaa ka soo muuqda meel u dhow si xun ayuuna dhaawacan yahay inkastoo wax kasta dhacayaan Tenma ma awoodo inuu ka tago isagoo dhimasho ku daawanaya wuu neef qabtaa albaabka baabuurka ayuu furaa wuxuuna lunga si degdeg ah ugu qaadaa isbitaalka u dhow dhakhtarkaas naxariista badan laakiin lunga ma ahan qof si fudud u joojin kara dhiig bax yar wuxuu soo ceshtaa miirkiisa isagoo xoog maskaxeed oo adag leh ayuu Tenma ka adkaadaa wuxuuna gacanta ugu xiraa katiinad baabuurka ayaa ku leexday baqaar isagoo gudaha si xoog leh u istaagay Tenma oo ku xanibna ayaa dalbanaya furaha katiinada laakiin lunga wuxuu arkaa fursad wuxuu ku cadaadiyaa inuu qirto dilka laakiin Tenma wuu adkaystaa si toosna ayuu u eegayaa aragga lunga ayaa madoobaanaya dabadeedna wuu suuxaa oo dhulka ayuu ku dhacaa iyadoo aan waqti lumin Tenma wuxuu furaa katiinadaha wuxuu xiraa dhaawaca lunga wuuna qaadaa si uu ugu wada isbitaalka laakiin haddii aad u malaynayso in naxariistan ay lunga ka dhigi doonto saaxiib si qaldan ayaad u fahantay qaybta 23 waxay noo bilaabatay iyadoo Eva ay ku soo toostay xabsi waxaa loo xiray qamri ku xirnaan dadweyne sidoo kalena hadda waa guri la'aan kadib markii ay bixi waysay kirada nolosheeda aad bay u liidataa ilaa heer ay ku qasbantahay inay rag la seexato si ay u hesho waxay ku noolaato iyadoo wareersan oo xanaaqsan way ka baxdaa xabsiga way is ururisaa waxayna xasuusataa wax muhiim ah boorsadeeda way maqan tahay iyadoo go'aansanaysa inay hesho waxay ku degdegtaa hoteelkeedii laakiin halkaas waxay la kulantaa naxdin kale oo cusub markii ay gudaha u gasho alaabteedii oo dhan way kala daadsan tahay taas waxaa ka sii daranna lacagtii oo dhan waa la waayay iyadoo aan meel ay ku noqotay iyo lacag midna haysan Eva waxay ku dhex wareegaysaa magaalada daal iyo wareerna u dheeraad yahay markaas sidii qof har aga soo baxay Robert ayaa soo muuqda isla ninkii ee habeenkii xabsiga ka hor la cabtay gacantiisana waxaa ku jira boorsadeedii maqneed isagoo dhool cadeyn khiyaano la wato wuxuu ku martiqaadaa qado sidii saaxiib hore inta ay qadada wada cunayaan Eva waxay tusaysaa album sawiro ah mid ka mid ah waxyaabaha ay aad u qiimayso markuu bagogo rogrogo indhihiisa waxay ku dhacaan sawirka Eva iyo Tenma laakiin waxba ka maqan sawiro qaar ayaa laga jaray albumka Let's see. The ex-fiancé. Please don't tell me I told you about him. markay ku noqdaan hoteelka codka Roberto wuu isbedelaa wuxuu weydiiyaa sawirada maqan isla markiiba Eva wuxuu ku dhuftaa dharbaaxo Roberto wuxuu sheegaa inuu og yahay halka Tenma uu ku sugan yahay taasoo Eva ka dhigaysa inay si waali ah u qosasho Eva waxay sheegtaa in sawirada maqan ay yihiin kuwii Johan iyo Dr. Ude Henneman oo ahaa aabaheed waxay u sheegtaa Roberto inay aragtay Johan oo qaangaar ah oo jooga Düsseldorf sanad ka hor wax ka siyaab badan waxay shaaca ka qaadaysaa sir ay dad yar kaliya ogaayeen habeenkii Adolf Junkers la dilay waxay si qarsoodi ah u raacday Tenma mugdiga dhexdiisa waxay aragtay isaga Johan oo ka soo degaya jaranjarada isla markiiba kadib markii uu rasaasta riday markuu waaga soo galo Roberto wuu soo toosaa isagoo la go'aan cusub hadda oo Eva ay aragtay wajiga Johan waa inay dhimataa qaybta xigta Eva waxay Roberto u sheegtaa in diyaarin la sameeyay haddii la dilo sawirada Johan waxaa si toos ah loo gudbinayaa booliska laakiin haddii uu geeyo meesha Tenma ku sugan yahay waxay siin doontaa sawirada isaga Roberto wuu aqbalayaa ugu yaraan si ku meel gaar ah qofna lama tooganayo hadda dhulka kaymaha u dhow Fusan Tenma wuxuu bilaabay shaqo cusub oo ah dhakhtar suuq madow isagoo daweynaya dadka aan awoodin ama aan rabin inay isbitaal aadaan bukaankiisa hadda waa Mr. Heidmeyer oo hore u ahaa ku-xigeenka hogaamiye koox dambiilayaal ah balse hadda ku nolol degan oo go'doon ah xilliga qadada wuxuu Heidmeyer miiska la fadhiyaa Tenma Otto iyo Dieter iyagoo wada cunaya chicken marengo inta ay wax cunayaan Heidmeyer wuxuu bilaabaa inuu ka fikiro noloshiisii hore wuxuu qirtaa inuu wax walba lumiyay sababtoo ah waxa kaliya uu daneyn jiray waxay ahayd lacagta kadibna wuxuu la wadaagaa sheeko aad u qoto dheer qiyaastii 5 sano ka hor banki qarsoodiyaha ayaa maamuli jiray isla markaana dhaqi jiray ku dhawaad dhammaan lacagaha ku dhex wareega dunida dambiyada bankigaas qiimihiisu wuxuu gaarayay balaayiin dollar maalin maalmaha ka mid ah hogaamiyihii bankiga ayaa si lama filaan ah u baaba'ay waxaase ka siyaab badan in wararku sheegayaan isagoo jiray 15 sano oo keliya maqnaashaha maskaxdaas qarsoon ayaa abuuray firaaqa awoodeed taasoo ugu dambeyn dhalisay dagaal dhiig badan ku daatay oo dhex maray dadkii ku lug lahaa howlaha bankiga Tenma wuxuu bilaabaa inuu ka shakiyo in qofkan qarsoodiga ah uu noqon karo Johan kadib oo dhan Johan wuxuu food la mid ah ka abuuray Kinderheim 511 isagoo jira 10 sano oo keliya Heidmeyer dhankiisa wuxuu qiyaasayaa in hogaamiyihii hore laga yaabo inuu hadda yahay arday
meel ku sugan laga yaabay Munich. Dieter wuxuu soo jeedinayaa in Helmut oo ah waardiyaha Heidmeyer lagu casuumo qadada. Marka hore Heidmeyer wuu diidaa isagoo leh shaqada Helmut waa ilaalin ma aha inuu miiska la fariisto. Laakiin markuu Tenma ku qanciyo ugu dambeyn wuu ogolaadaa wuxuuna u diraa Dieter inuu u yeero. Iyagoo aan ogeyn khatar ayaaba mar hore ku soo dhawaanaysa kuna qarsoon geedaha dhexdooda. Robert ayaa yimid, Evana dhinaciisa ayay joogtaa isagoo aan ka labalabayn. Robert wuxuu toogtaa Helmut. kadibna wuxuu u jeestaa Eva isagoo bistoolad gacanteeda ku riixaya kuna amraya inay raadiso ay Tenma disho. Dhanka guriga qalabkii digniinta ee Heidmeyer ayaa dhawaaqaya isagoo muujinaya in Helmut la toogtay. Wuxuu isla markiiba fahmaa waxa ay taasi ka dhigan tahay. Noloshiisa ayaa khatar ku jirta. Dieter oo weli raadinaya Helmut wuxuu halkii kula kulmaa Eva iyadoo degdeg ah ayay ugu digaysaa waxayna ku amartaa inuu Tenma u sheego inuu isla markiiba baxsado. Laakiin ka hor inta uusan Dieter dhaqaaqin rasaas ayaa dhacda. Robert ayaa toogtay Eva waxay ku dhacdaa dhulka banaan. Dieter wuxuu doonayaa inuu caawiyo laakiin Eva iyadoo dhaawaceeda qabsanaysa waxay ku amartaa inuu cararo. Dieter si madax adeeg leh ayuu u diidaa inuu ka tago isagoo aaminsan inay tahay saaxiibada Tenma. Wuxuu ku caawiyaa inay gaaraan geed u dhow halkaas oo ay ku dhuntaan iyagoo Robert raadinayo. Tenma wuxuu si degdeg ah aga soo degaa buurta wuxuuna helaa waxyar ka hor inta aysan Eva miir beelin. Markii xaaladda degto Eva iyo Heidmeyer waxay mar kale wada fadhiistaan qadada iyagoo cunaya chicken marengo. Heidmeyer wuxuu Eva u sheegaa in Robert uu doonayay inuu iyadu u adeegsado dabin si uu u helo meesha ay ku dhuumanayaan. Tenma ayaa badbaadiyay nolosheeda haddana wuxuu amba baxay Munich si uu u ogaado qofka dhabta ah ee ka dambeeyay bangigaas qarsoodiga ah. qaybta 25aad waxay ina geynaysaa goob cusub Munich. Karl Newman oo ah arday jaamacadeed oo barta dhaqaalaha wuxuu isku dheelitirayaa waxbarashadiisa iyo shaqo waqti dhiman ah oo uu u qabto Hans Georg Scholwood isagoo buugaag u akhrinaya. Scholwood waa nin si weyn looga qadariyay dhinaca dhaqaalaha. Hal taleefan oo sameeya ayaa gelgeli kara suuqyada dhaqaalaha ee Jarmalka laakiin shaqada akhrinta ma ahan mid sahlan. Scholwood si joogto ah ayuu u joojiyaa Karl isagoo dhaleecaynaya habka oo wax uu akhriyo kana dhigaya inuu dareemo inuusan waxba ku filnayn. Maalin maalmaha ka mid ah Karl wuxuu sirtiisa la wadaagaa Lotte Frank oo ah ardayad kale oo dhigata jaamacadda Munich isla markaana ka shaqeysa guriga Scholwood. Wuxuu u sheegaa inuu soo maray dhowr qoys oo karsaday. Sababta dhabta ah ee uu Munich u yimid aysan ahayn waxbarasho oo kaliya. Wuxuu raadinayaa hooyadiis Margot Langer iyadoo xiiseynaysa wixii oo soo maray Karl. Lotte waxay ka caawisaa baaritaanka Margot Langer. Baaritaankoodu wuxuu ugu dambeyn u horseedaa inay habeenka daba tagaan Scholwood. Waxay daba socdaan isaga iyagoo dhexmaraya magaalada ilaa ay gaaraan xaafadda lagu yaqaan madadaalada habeenkii ee Munich. Waxay daawanayaan isagoo galaya dhismo dabaqyo ah. Karl oo aan sicnin karin wuxuu go'aansadaa inuu gudaha galo si uu u ogaado qofka oo Scholwood booqanayo. Gudaha waxay kula kulmaan haweeney lagu magacaabo Blausolby taas oo sheeganaysa inay tahay Margot Langer. Waxay Karl u sheegtaa in Scholwood si joogto ah lacag u siiyo sababtoo ah iyada waa hooyada ilmihiisa. Lotte waxay bilowdaa inay dhacdooyinka isku xirto. Karl waa wiilka Scholwood. Money, money, money. That's all the bastard's been living for, and the only way he knows how to say sorry. laakiin Karl wuu diidaa inuu rumaysto. Wuxuu ku adkaystaa in Margot hooyadiis dhabta ah la dilay sanad ka hor. Markay aragtay falcelintiisa, Blausolby waxay bilowdaa inay ka been sheegto inay tahay Margot Langer. Kadibna iyaduna waxay Karl ku eedeysaa inuu been sheegayo iyadoo ku doodaysa inuu iska dhigayo wiilka Scholwood si uu u dhaxlo hantidiisa. Laakiin waxay daaha ka qaadaa xog kale oo lama filaan ah. Waxaa jira qof kale oo sheeganaya inuu yahay wiilka Scholwood. Qofkaasna wuxuu ka shaqeeyaa guriga Scholwood maalin kasta oo khamiis ah. Lotte waxay xasuusataa inay mar aragtay wiilka qarsoodiga ah ee khamiista yimaada. Wuxuu lahaa dahabi ah iyo waji qurux badan oo soo jiidasho leh. Iyagoo go'aansaday inay runta ogaadaan, Karl wuxuu isweydiiyaa qofkaas kaliyuu yahay. Dhanka kale, Lotte waxay ku guulaysataa inay ogaato magaca wiilka khamiista. Magaciisana wuxuu ahaa Edmond Franz. Iyada iyo Karl waxay ka raadiyaan jaamacadda, laakiin Scholwood ayaa arrintaasi murjinaya. Guriga Scholwood wuxuu Karl wax ka weydiiyaa waalidkiisa, isagoo si joogto ah ugu riixaya inuu jawaabo bixiyo. Karl isagoo ka labalabaynaya wuxuu qirtaa in la korsaday. Scholwood si taxaddar leh ayuu u eegaa, kadibna wuxuu u sheegaa inuu rumaysan yahay inuu ugu dambeyn helay wiilkiisii dhabta ahaa, qof aan dan ka lahayn hantidiisa. Waqtigan Scholwood wuxuu aaminsan yahay in wiilkiisii muddada dheer ka maqnaa uu yahay Edmond Franz, isla wiilkii khamiista. Laakiin rajadan cusub waxay qarka u saaran tahay inay burburto. Iyagoo weli doonaya inay helaan Edmond, Karl iyo Lotte waxay tagaan qolkiisa jiifka ee jaamacadda. Nasiib daro waxay Edmond ka helaan isagoo saqafka guriga ka soo laalaadsan, waxayna u muuqataa inuu gacantiisa isku dilay. Tani waxay soo afjaraysaa rajada Scholwood ee ahayd inuu dib ula midoobo wiilkiisii muddada dheer la waayay ugu yaraan hadda. Maalintii xigtay, Lotte waxay Karl baraysaa ardayga u shaqeeya Scholwood maalmaha Jimcada. Magaciisa muxuu ahaa? I'm Johann Liebert. qaybta xigta Richard Brown
oo ah baare gaar ah iyo sargaar boolis hore ayaa Sherwood u shaqaaleysiiyay si uu u baaro isdilka laga shakisan yahay ee Edmund France. Richard waa nin isku dayay inuu ka gudbo dhibaatadiisa qamriga. Wuxuu la tashaday cilmi nafsiyaqaankiisa Dr. Redfin wax ku saabsan geerida Edmund si fudud uma qanciso. Dhanka kale Carl wuxuu Johan kula kulmaa saqafka mid ka mid ah dhismayaasha jaamacadda. Iyagoo magaalada dusha ka eegaya, Johan wuxuu Carl wax ka weydiiyay noloshiisii hore, isagoo muujinaya xiise aan caadi ahayn oo ku saabsan taariikhdiisa. Carl oo aan ka warqabin qofka dhabta ah uu Johan yahay wuxuu si daacad ah uga waramaa noloshiisa. Wuxuu sheegay inuu noloshiisa oo dhan ku qaatay isagoo u kala wareegaya qoysas kala duwan oo korsaday. Kadib isagoo leh dareen go'aanka madambeysa wuxuu Johan u sheegay runta, isagoo waa wiilka Sherwood. Markuu maqla arrintan, Johan indhihiisa ilma ayaa ka soo qubato. Sababta saxda ah markiiba lama fahmayo, laakiin waqtigan waxaan hore u ognaa in ficilada Johan ay yihiin kuwa la xisaabiyay walibana si qoto dheer loo qorsheeyay. It's very strange, but I feel like I can talk to you about almost anything in the world. Lotte oo mar walba ka walwalsan Carl iyo Sherwood waxay la wadaagtaa walaaceeda. Tan iyo geeridii Edmund, Sherwood wuxuu noqday mid go'doonsan. Si liidata ayuu wax u cunaa, wuxuuna u muuqdaa mid si qoto dheer u fikiraya. Waxay soo jeedinaysaa in Carl oo Sherwood u sheego runta, inuusan ahayn qof kale balse uu yahay wiilkiisa dhabta ah. Waxay rajaynaysaa in arrintaas ay dib ugu soo celin karto xoogaa farxad ah oo noloshiisa ah. Isla waqtigaas Richard Baron wuxuu natiijooyinkiisa baaritaankiisa u gudbiyaa Sherwood. Wuxuu si toos ah ugu sheegaa inuusan rumaysnayn in geerida Edmund Frank ay ahayd isdil. Waxaa ka sii muhiimsan si ka duwan wixii Sherwood marka hore aaminsanaa. Richard wuxuu ku adkaystaa in Edmund aanan suurtagal ahayn inuu ahaa wiilkiisa. Intii uu Richard sii wada baaritaankiisa wuxuu gaarayaa Blue Soldier. Waxay u sheegtaa waxaad u qalqalgelinaya. Laba kooxood oo kala duwan ayaa u yimid, labaduna waxay sheeganayeen inay yihiin wiilka Sherwood. Kooxdii ugu horeysay waxay ahaayeen Carl iyo Lotte. Kooxdii labaadna waxay ahaayeen Edmund oo uu la socdo saaxiib qarsoodi ah. Markay tilmaam kasta oo cusub soo baxdo, Richard wuxuu dareemayaa in xaaladdu sii adkaanayso. Qof ayaa si xeeladaysan u abaabula khiyaano aad u adag. Richardna wuxuu go'aansaday inuu runta ogaado inta ay goor tahay. qaybta xigta Richard Baron wuxuu marka la kulmaa cilmi nafsiyaqaankiisa Dr. Redfin si ay ugu wada hadlaan Carl ninkii dhalinyarada ah ee helay meedka Edmund France. wada hadalkooda wuxuu si tartiib ah ugu wareegaa nolosha gaarka ah ee Richard. Redfin wuxuu xusuusinayaa in haddii uu ka fogaado qamriga laga yaabo inuu maalin uun gabadhiisa markale la kulmo. Si ay arrintu u caddaato, shaqadii Richard ee baaraha ahayd ma ahayn waxa kaliya oo qamriga burburiyay. xaaskiisii way ka tagtay, gabadhiisana ma arag muddo dheer. erayada cilmi nafsigu waa kuwa cad oo adag. Richard mar dambe weligii ha caabin qamri. Richard wuxuu dib u xasuustay habeenkii oo toogtay Stephen Yost oo ahaa wiil 17 jir ah oo lagu eedeeyay dilka 9 haween ah. Nasiib daro, Richard wuxuu habeenkaas ku jiray shaqada isagoo saqraansan. qaladkaasi wuxuu ka qaaday shaqadiisii wuxuuna ka tagay isagoo weligiis ay maskaxdiisa ku soo noqnoqonayso wejiga Stephen Yost. Isagoo raadinaya jawaabo ka baxsan shaqadiisa, Richard wuxuu la kulmaa xaaskiisii hore. Waxay u sheegtay war xanuun badan. Gabadhoodii weli diyaar uma ahayn inay aragto. She's made up her mind. I didn't want to force her. It's her decision. Hey, that's okay. Don't worry about it. isagoo qalbi jabsan, Richard wuxuu galaa baar. wuxuu dalbadaa koob whisky ah. muddo dheer ayuu eegayaa koobka, laakiin halkii uu cabi lahaa wuu ka tagaa. ballantii uu naftiisa u qaaday weli way taagan tahay. dhanka kale, Johan wuxuu si tartiib ah u saameynayaa Carl. wuxuu ku boorinayaa inuu Sherwood u sheego runta ku saabsan xiriirkooda, laakiin Carl wuu diidaa. wuxuu ka baqayaa in Sherwood uu u arko nin kale oo dhalinyaro ah oo u yimid inuu hantidiisa dhaco. laakiin Johan wuu ku adkaystaa waa inay jirto caddeyn muujinaysa xiriirkooda. ugu dambeyntii, Carl wuxuu shaaca ka qaadaa sir uu muddo dheer qarinayay. hooyadiis ayaa mar siisay cag bakeyle. waxay ahayd hadiyad Sherwood markii hore ugu talagalay inuu siiyo wiilkiisa markii uu yaraa. Carl wuxuu diiday inuu cagta bakeylaha u adeegsado caddeyn. markuu arko in Carl uu weli ka labalabeynayo inuu shaaciyo aqoonsigiisa dhabta ah, Johan wuxuu ku yiraahdaa inuu isagu u hayn doono cagta bakeylaha haddii ay dhacdo inuu maalin uun uu go'aankiisa bedelo. markii Carl ugu dambeyn la kulmo Sherwood ayaa soo bandhigay cagta bakeylaha, astaantii oo Carl si qarsoodi ah u qarsan jiray. maxaad hore iigu sheegi weyday ayuu Sherwood ku yiraahdaa. ugu dambeyn, aabe iyo wiil ayaa dib u midooba. kadibna isagoo codkiisa ay ka buuxdo kalsooni, Sherwood wuxuu shaaca ka qaadaa qofkii wax walba u sharaxay, Johan. laga bilaabo xilligan, Sherwood wuxuu ku dhawaaqaa in Johan uu noqon doono xoghayihiisa gaarka ah. tani waxay ahayd qorshaha muddada dheer socday ee Johan. bilowgii wuxuu doonayay inuu Edmund u adeegsado sidii buundo oo ku gaari lahaa Sherwood, laakiin markii uu noqday Carl wiilka dhabta ee Sherwood, Johan mar dambe uma baanay Edmund. khibradii oo ka helay maamulidda bangiga qarsoodiga ah isagoo jira 15 sano oo keliya, waxay u muuqataa in hadafkiisu yahay inuu saameyn weyn ku yeesho kooxda Sherwood. waxaa laga yaabaa in maalin hal wicitaan oo keliya uu ku ruuxi karo suuqyada dhaqaalaha ee Jarmalka.
qaybta xigta Richard wuxuu la kulmaa Sherwood isagoo filaya inay ka wada hadlaan baaritaankiisa ku saabsan geerida Edmund laakiin Sherwood go'aankiisa hore ayuu u qaatay wuxuu rabaa in Richard uu joojiyo baaritaanka hadda oo Karen la xaqiijiyay inuu yahay wiilkiisa ma jirto baahi loo qabo in wax kale la sii qodo si niyad jab leh Richard wuu aqbalaa laakiin wax ayaa weli maskaxdiisa ka guuxaya ka hor inta uusan bixin wuxuu maqlaa magac soo jiita dareenkiisa Johan sidaas darteed Johan hadda wuxuu si dhow ula shaqeynayaa Sherwood fiidkii habeenkaas Richard wuxuu raacayaa Uban dareenka dhulka hoostiisa mara ee Jarmalka isagoo kulmay fikir laakiin markii uu ku dhow yahay dhamaadka wadada tareenka Richard wuxuu dareemaa isbedel sida qof isku diyaarinayo inuu ku riixo jidka tareenka si degdeg ah ayuu gadaal ugu jeestaa laakiin qof muuqda ma jiro hase yeeshee dareenkaasi ma ba'o qof ayaa daawanaya qof ayaa raba inuu dilo isagoo go'aansaday inuu jawaabo helo Richard wuxuu dib ugu noqdaa kii sore dilalkii Stephen Yost oo geystay markuu si qoto dheer u baarayo feelasha waxba maskaxdiisa ku soo dhacaya maxaa dhacaya haddii dilalkan u muuqdo kuwa kala gooni ah ay dhab ahaantii isku xiran yihiin wuxuu aragtidiisa u gudbiyaa Dr. Rickfin wuxuu sharxayaa in dhibano kasta uu lahaa xiriir u gaar ah oo la xiriira Sherwood mid ayaa loo tirtiray sidoo qof si taxaddar leh u jarayo Sherwood xiriir kasta oo uu la leeyahay dunida inteeda kale Dr. Rickfin oo ka walwalsan natiijooyinka Richard wuxuu la wadaagaa warqad oo ka helay ardaygiisa hore Rudy Gillen isla Rudy Gillen saaxiibkii hore ee Tanna warqaddu waxay sharxaysaa waraysi oo Rudy la yeeshay dilaaga xukun ku jira ee Peter Jurgens dilaagii xabsiga ku jiray wuxuu qirtay inuu qof dilay sababtoo ah saaxiibkiis ayaa ka codsaday magaca saaxiibkaas maxuu ahaa Johan sababtoo ah baaritaanada u dhaxeeya Richard iyo Rudy Johan wuxuu noqday qof si gaar ah loo danaynayo Richard iyo Rickfin waxay bilaabeen inay isku xiraan dhammaan qaybaha kala daadsanaa haddii ay sax yihiin Johan wuxuu 4 sano ee la soo dhaafay si qarsoodi ah oo uu abaabulay dhimashooyin isagoo dhacdooyinka u maamulaya si uu Sherwood uga gooyo xiriir kasta oo uu leeyahay dunida tusaalihii ugu dambeeyayna wuxuu ahaa Edmund France qaybta Richard wuxuu doonayaa in uu dib ula xiriiro gabadhiisa wuxuu la kulmay xaaskiisa hore wuxuuna siiyaa bashqad ay ku jiraan go'go'yo wargeysi oo ku saabsan kiiska Stephen Yost wuxuu rajaynayaa in haddii ay gabadhiisa ogaato runta ku saabsan wixii uu soo maray ay si wanaagsan u fahmi doonto xaaskiisii hore way qaadataa bashqada laakiin wax ballan ah ma bixiso dhanka kale Richard wuxuu sii wadaa baaritaankiisa ku saabsan Johan wuxuu u safraa Offenburg halkaas oo uu kula kulmo lamaano lagu magacaabo Libert si loo cadeeyo kuwani maahan Libertiga qaybtii ugu horeysay ee bilowga taxanaheena farxad ayay ugu waramayaan wiilkooda Johan oo wax ka barta jaamacad ku taala Munich laakiin markii uu Richard sii baaro wuxuu ogaadaa wax aad u yaab badan wiilkoodii dhabta ah wuxuu geeriyooday sanadkii 1978 lamaanuhu waxay wax ka bedeleen diiwaanadii hore iyagoo iska dhigaya inuusan weligood wiilkooda dhiman isla waqtigaas Dr. Rickfin wuxuu Rudy Gillen siyaa sawirka Johan isagoo rajaynaya in Peter Jurgens uu xaqiijin karo inuu yahay isla Johankii saameynta ku yeeshay markii hore Jurgens wuxuu sheegayaa inuusan aqoonsanin qofka sawirka ku jira laakiin si lama filaan ah wuxuu Rudy ku codsadaa qalin wuxuu bilaabaa sawirka Johan inuu wajigiisa qalinka ku masaxo isagoo oo aan wax digniin ah bixin Jurgens wuxuu si isdaba joog ah ugu celceliyaa nala kaalay kadibna wuxuu si iskiis u soo afjaraa noloshiisa Rudy aad buu ugu naxaa wuxuu isla markiiba u caabay Rickfin isagoo u sheegaya in saameynta Johan ay aad uga khatar badan tahay sidii ay markii hore maleynayeen habeenkaas Richard wuxuu helaa wicitaan teleefon ugu yimaada waa gabadhiisii waxay ugu dambeyn diyaar u tahay inay mar kale la kulanto waa daqiiqad yar laakiin macno weyn u leh isaga waxaa laga yaabaa in ugu dambeyn la siiyay fursad labaad Mr. Brown, it's Johan. laakiin wax yar kadib albaabkiisa ayaa la garaacaa waa Johan si xushmad leh ayuu u salaamaa Richard isagoo xusuusinaya inay ku kulmeen guriga Sherwood kadibna waxay isla aadaan baar si ay wax u cabaan iyagoo fadhiya miiska Johan wuxuu si degan u weydiiyaa ma rabtaa whisky kadib sanado uu isku dayay inuu ka fogaado qamriga Richard uu diiday dalabka Johan laakiin haddana Johan wuxuu iibsadaa dhalada whiskyga iyagoo magaalada dhex maraya Johan wuxuu ka hadlaa Stephen Yost wiilkii uu sanado ka hor toogtay Richard wuxuu shaaca ka qaadaa in Yost oo ku jiray Kinderheim 511 goob xiriir la leh dhammaan dhacdooyinka naxdinta lahaa ee Richard baarayay markay gaaraan saqafka sare ee dabaqa Johan wuxuu sii xoojiyay cadaadiska wuxuu Richard ku eedeeyaa inuu dilo Yost isagoo aan haysan caddeyn dhab ah wuxuu sidoo kale sheegaa in Richard uu isticmaalay sheekada ah inuu sakhraansanaa si uu ugu cudur daarto wixii uu sameeyay kadibna wuxuu Johan si toos u taabtaa nuglaanta ugu weyn ee Richard Brown wuxuu weydiiyaa nin adiga oo kale ma isbedeli karaa dhab ahaantii ma u qalmaa cafiska gabadhiisa Well, Richard, how about a drink? markaas ayuu Johan mar kale u dhiibaa dhaladii whiskyga god damn sida noo muuqata Richard Brown si buuxda ayuu u kala daatay ilaa heer uu gaaro inuu lumiyo rajada nolosha wuxuuna ku dhacay burbur shucuureed ee adag tahay in laga soo kabsado erayadiisana si buuxda ayay ugu dhex milmeen Richard
maalintii xigtay boolisku waxay booqdaan Dr. Rickfin waxay u sheegaan in Richard Brown uu geeriyooday. Mr. Brown, this charade has gone on long enough. Were you really drunk when you pulled the trigger? marna si cad looma sheegin waxa dhab ahaantii dhacay ma Richard ayaa iskiis isku tuuray mise qof ayaa saqafka dabaqa ka riixay laakiin awoodda Johan ee ah inuu dadku ku saameeyay erey kaliya ayaa marar badan la arkay intii ay sheekada socotay dhanka kale dagaalkii Richard ee uu kula jiray sidii uu isu sixi lahaa wuxuu ku dhamaaday meel murugo leh agta dhalo whisky ah oo laga yaabo inuu cabay ama laga yaabo inuusan cabin laakiin qaybtan si fiican baa loo diiwaangeliyay runtii innaba caadi ma ahan waxaas ka siyaa badan halqadaha soo socda si aysan kuu dhaafin iskuuba inaad nagu soo biirtay insha Allah waan soo dadajin doonaa sida caadigaana waad ku maadsantahay daawashadaada waxaan isku ognahay kulanti dambe oo xiiso leh